taniyayntii uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku dhawaaqay gooni-sutaaga bishii May 18 sanadkii 1991 Soomaaliland waxay soo martay marxalado kala duwan oo mid waliba waayihiisa lahaa waxaanay markasta iimaanka ku haysay sidii ay dunida horumartay u gaari lahayd waxana ula qaybsan lahayd si ay uga soo kabato burburkii ay u geysatay dawladdii dhexe ee militariga ahayd ee Soomaaliya. madaxweynayaashii kala duwanaa ee soo hogaamiyay qarankan taabagalka noqday ee Soomaaliland ayaa mid waliba uu meel soo gaarsiiyay iyadoo ay kala duwanaayeen waqtiyada hogaamiyaashaasi haddana waxa xusid mudan in madaxweyne kasta oo Soomaaliland soo maray uu ku suntan yahay wax qabad la taaban karo. balday Soomaaliland wanaag lagu diirsadiyo sidee nabad ugu dageen sidee nabad ugu dageen haddana waxa marag madoona oo dad badan ay qirsan yihiin in xukuumadihii kala dambeeyay ee kulmiya ay geed dheer iyo mid gaabanba u koreen sidii uu qarankani aqoonsi u heli lahaa walow aanu ictiraafkaasi iman ilaa maanta haddana waxa ay barbar wadeen sidii dunida loogu soo jeedin lahaa jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku taala bugcad istiraatiijiya si ay u maalgashadaan khayraadka dihiin ee ku duugan jamhuuriyadda Soomaaliland. xukuumadaha kulmiya waxay dadaal iyo tacab badan ay geliyeen inay samayso isu soo dhawaansho ka dhaxeeya wadamada horumaray gaar ahaan dalalka Carabta iyo Soomaaliland. madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo maanka ku hayay dareensanaan qiimaha maalgashiga uu leeyahay qarankan tisqaadka ayaa safar kala gedisan ku gaala bixiyay caalamka waxaana ku guuleystay maalgashiga ugu ballaarnaa inta la xasuusan yahay ee laga binayay Soomaaliland kaasoo ah heshiiskii taariikhiga ah ee ay kala saxeexdeen dawladaha Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu oo si weyn indhaha caalamka mar kaliya ugu soo jeediyay jamhuuriyadda Soomaaliland saameyn weyn ku yeeshay geeska Afrika iyo bariga dhexe waxaana si weyn uga biyadiiday xukuumadda aan iskeediisu taagi karin ee xamar ka dhisan oo markii ay maqleen heshiiskaasi ka howlgalay sidii ay u joojin lahaayeen kuna guul daraystay aakhirkii waxa isha ku hayay oo kale dalalka Djibouti iyo Itoobiya halka Itoobiya markii dambe ay qayb ka noqotay heshiiskaasi. madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo ayaa si uu dardargeliyay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo Imaaraadka waxa uu bishii Juun 30 sanadkii 2015 digreeta madaxweyne ugu magacaabay wakiilka Soomaaliland u fadhiya wadanka isu taga Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Cawil Xaaji Cumar. xafiiskan waxa la furay aniga madaxweynuhu ii magacaabay bishii Juun 30 sanadkii 2015 waqtiga uu ii magacaabay saad xustay jamhuuriyadda Soomaaliland xafiisku ma lahayn dalka Imaaraadka xafiiskii aad isugu taxaluujinayay inuu ka shaqeeyo sidii uu dardargelin lahaa hawlaha loo xilsaaray madaxweynuhu u xilsaaray inuu xafiiskan ka shaqeeyo hawlahaasi oo runtii u kala baxaa dhowr qodob sideedaba marka safaarad la sheegayo ama shaqada safaaradda laga hadlayo waxa ay tahay waa wajigii dalka waa halka marka la tago wadan kasta ay ka dhaleecan karto meesha aad tegaysaa say tahay say u eg tahay maxaa laga helayaa maxaa laga faa'iideeyaa maxay dadkeedu aaminsan yihiin marka waxaad odhan kartaa waxa ay tahay afkii iyo indhihii wadanka soo wakiishay marka waxaa muhiima marka aad dal tagto in aad soo bandhigto wadankaaga ood u soo bandhigto dadka aad u tegayso adigoo marka ka tusiya mar walba waxa wanaagsan
haddaba marka aynu raadraac ku samayno tagtadii shalay markii xafiiska la sameeyey ka hor muu jirin xidhiir ganacsi mid siyaasadeed iyo mid samafaltoona oo ka dhexeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka sidoo kalena may jirin mashaariic waaweyn iyo adeegyo samafal ah marka laga reebo mashaariic teelteel ahaa way hay'adaha qaar ka keeni jireen dalkaasi hase yeeshee markii xafiiska la sameeyey waxa uu markiiba Safiir Baashe Cawil isagoo dareensanaa mugga iyo miisaanka uu leeyahay shaqada uu madaxweynuhu u magacaabay bilaabay inuu dardar geliyo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta sida sunnaha nolosha waxa jiray caqabado badan oo ka hor yimi Safiir Baashe Cawil Xaaji Cumar kana mid ahayeen caqabadahaasi arrimaha siyaasiga ah oo ay aaminsanayeen markii hore dalka Imaaraadka Carabta iyo dawladaha kale ee Carbeed inay Soomaaliland ka mid tahay maamul goboleedyada Soomaaliya sida darteedna aanay suuragal ahayn in maalgashi toos ah la sameyn karo Jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba si caqabadahaasi looga gudbo Safiir Baashe Cawil waxa uu dadaal badan iyo juhdi adag u galiyay sidii loogu qancin lahaa dalka Imaaraadka in Soomaaliland ay tahay dal madax bannaan oo ka duwan Soomaaliya xaqna u leh ay ka tashiga masiirkooda iyagoo aan daba fadhiin xamar taasina waxa ay sababtay in markii dambe xiriirka labada dal ee Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu uu ka soo dhawaaday sidii hore keenayna in mashaariic halgala ay ka hirgalaan Jamhuuriyadda Soomaaliland mashruucani wuxuu faa'iido u leeyahay dalka midaan la soo koobi karin haddaad eegto xaq dhaqaale xagga horumarka dhalinyarada waa ogtihiin oo ninka rag badan oo dhalinyarada ku jira oo shaqo la'aanta dalka ka jirta dhibaatadeena haysata waxa ugu badan ee wadanka la eegayaana tahay wadanka shaqo abuur la sameeyo oo horumar la sameeyo horumarkuna dunida waxay ka horumartaa oo horumar yimaada marka ummaddu waxa ay haysatay dalkeedii asaaska ay dhisato dalka Imaaraadka inuu joogno laba shay baa horumarkiisa qayb ka ahaa dekadii ay samaysteen Jabal Cali marka dekada DP World ay ku bilowday oo imika 77 dekadood maamusha iyo airportka labada shay ay sameeyeen wuxuu sahalay midna in maraakiibtii iyo maciishadii dunida iyo businesskii dunida ganacsiga dunida ay u yimaado dekada airportkina wuxuu sahalay dalku inay yimaadaan soo qora marka waxaan uga socdaa maanta inagu waxaynu dhisanay dekada imika aynu dhisaynaa dekadii horeynu haysanay 650 mitir bay ahayd waxa laga hadlayaa dekad 800 mitir imika in shaqadeedu bilaabato sanadii badgudahooda inoo dhasmato waxay taasi inoo sahlaysaa waxay inoo sahlaysaa in Ethiopia oo 120 milyan aynu badeecadaheedii markaa bilowna ganacsigeedii inoo bilaamo dhalinyaradeenii shaqaysto xaggii noqoto xaggii gaadiidka hadday noqoto xaggii kale adeega bulshada inaynu noqono dad isu diyaariyay sidii ay dunida wax uga iibin lahaayeen waxna uga iibin lahaayeen dadka jaariska yihiin oo aynu noqono dad markaa ka faa'iideysta fursadda ay gacankan joogno marka guud ahaan markaad eegto fursad wanaagsan weeyaan qaranku iyo dalkana wax taraya ma aha mid shakhsiya mid qof gaar maaragtay ku kooban mid gidigeen waxayna wada taraysa weeyaan taasaan filayaa in maanta mujtamaca Soomaaliland iyo shacabkuba ku soo dhaweyn doonaan insha Allah waxay shacabka Soomaaliland Imaaraadka u aqoonsadeen inay yihiin mahakradayaal aan habsan iyo hakad galin u gurmadka adanimada gaar ahaan Soomaaliland dawladda Imaaraadka Carabta waxay noqotay dalkii ugu horeeyay ee ka dareen celiya inay walaalahooda Soomaaliland ka caawiyaan hadda wixii baahi ka jiray deegaanada ay masiibooyinka abaaraha iyo duufaantii Sagar ay ku dhufatay kuna habsadeen waxyaabaha ay inoo qabteen Imaaraadku ma koobi karayno haddii ay tahay xagga caafimaadka haddii ay tahay xaggii gurmadkii duufaanku markii naga kacay si ay noogu soo gurmadeen ay noogu yimaadeen taasna waynu ognahay hadday tahay biyo xidheenkan hadday tahay inta soo socota ay ka mid tahay wadooyinku ay ka mid tahay caafimaadku ay ka mid tahay waxbarashadu intaaba ilaahay ka sokow dee Imaaraadka inoogu deeqay qofkii keenay ee mas-uulka ka ahaa ee ka dambeeyna wuxuu ahaa Baashe ilaahayna ha ka abaalmariyo taariikhduna iyada isqorta waa lagu xasuusan doonaa Baashe Jamhuuriyadda Soomaaliland ninba meel buu gaarsiiyay waxaan oran karaa Baashe wuxuu gaarsiiyay halkii ugu sareysay
sidoo kalena wakiilkii hore ee Somaliland ee Imaaraadka Carabta Ambassador Baasha Cawil waxa uu dadaal u ka galay sidii bulshadaasi loogu heli lahaa taageero bini'aadanimo waxaana isagu dadaal uu sameeyay ku yimi qaadan lacageed oo gaadhaya $100,000 oo ay soo bixisay shirkadda duulimaadada ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ee Fly Dubai halka lacag gaadhaysa $30,000 ay iska soo ururiyeen ganacsato samafalayaal ahi si wax loogu qabto daacuunkii ka dilaacay gobolka Togdheer magaaladiisa Burco waxaana xafiisku lacagtaasi uu ku wareejiyay xukuumadii waqtigaasi hay'adda Khalifa Foundation oo ka wakiilay dawladda Imaaraadka Carabta waxa ay dalka keentay 4 sano u dambeysay caawinooyinka kooban raashinka noocyadiisa kala duwan kuwaasoo loogu talagalay in lagu taageero waxna loogu qabto dadkii ay abaartu saameysay runtiina anigu waxaan arkaa safiirka hadilmiye maxaa Soomaaliland jooga Imaaraadka Baasha hadilmiye Cawil anigu waxaan shaqo wanaagsan qabtay ku soo jeediyay hadilmiye maxaa indhaha caalamka iyo indhaha hadilmiye dawladaha khaliijka Soomaaliland in hadilmiye meel hadilmiye wax u qaban karta ay wax ka qabsan karaan ay tahay sidoo kale waxa xusin mudan gurmadkii degdeg ahaa ee dawladda Imaaraadku ay kaga soo jawaab celiyeen 48 saac gudahood in dhulkii gadoonsanaa ee duufaantii Sagray ku dhufatay ay u soo diraan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo ciidamadooda gurmadka degdega taasoo ee Bakasaka sabab u ahayd badbaadinta nafa badan oo bixi lahaa Baasha Cawil wallahi ninkaasi wuxuu waxa weeyaan nin aad wax u qabtay anigu waxaan oran lahaa iskuul ha furto safaaradaha kale ee Soomaaliland leedahay wax ku baro wax weyn buu qabtay insha Allah imika de waad ka war haysaa kulli mashaariicdii dekada iyo saldhiga iyo wax kuwan bilaabmaya Soomaaliland inay saaxiibo yeelataa ay u baahantay waxaad ka war haysaa Imaaraadka Carabta oo aynu kala go'nayn xiriirkooda wanaagsan ninkii sameeyay ninka intiisa looma diido wax wanaagsan buu qabtay mashaariicdiina kulli way bilaabmaysaa bilahan aad baan ugu hambayleynaa waxa kale oo u rajaynaynaa Kenya meesha United Nations-kii hay'adii fadhiyaa weeyaan intii uu Imaaraadka ka keenay labadeedii mutaana ka keeno aad baan u mahadsan yahay waa nin bariida oo wax qabad badan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wadanka labaad ee la geeyay waxaan rajaynayaa inuu sidii Imaaraadka wax qabad badan ka keeni doono kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisu ay dadaal adag ka gashay sidii dadkaasi loo samata bixin lahaa Somaliland way isu burmanaysaa Somaliland waxa leedahay saaxiibo badan saaxiibka iyo Norway ku jira markay dhibaato dhacdo ayaa la bartaa Djibouti Carabta وأركسان عدة نوسو رئيسة نروح نوسو قربتين يهين وفد كوح دخاتير أو هجامين يا دكتور سيد الجاميري أو كسر دلك إمارات كعربتها يا سوق قري دلك Somaliland حلو كتاريخي سنة أبريل لحية لباتن كذي لبدي يكون يتضبية طبنكي وجدد سفر كود وحوها إن كان مع في مدايو سميان بلشة Somaliland مدله عشاء كوح دخاتير تاهي وحاي بلشة وجوش غينين حرون تكبد عقتها هرجيس stadium waxa la diiwaan galiyay loona sameeyay adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah tiro ka badan 5,000 oo qof kooxdan dhakhaatiirta ay waxa ay wateen shaybaarkoodii iyo dawooyinkoodii waan ku hambalyeynaya Baasha Cawil safiirkii inoo joogi jiray Imaaraadka waxaan leeyahay hambalyan leeyahay nin ka soo baxay shaqadiisii weeyaan Carabiga waxayna baratayba intuu joogay waa tadeed Sacuudiga waa ka baasaboorkeena maanta lagu الاعترافي مدحون كيني وسأكفليسي وكي Somaliland سأكفليسي وحاس وإمارات كده إنا كاكشقي Baasha Cawil sidoo kalena dawladda Imaaraadku waxay dhakhtarka weyn ee Hargeysa ay ku caawisay qalabkii lagu sifeynayay kaliyaha taasoo kaali weyn ka ciyaaraysa habsami u socodka caafimaadka ee dhakhtarka weyn ee magaalada Hargeysa maadaama aan xisbi ahaan si dhow la soconay xiriirkii fiicnaa dawladda khaliijka la yeelanay gaar ahaan dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaanu
aad iyo aad u tahniyadaynayna wakiilkii hore baasha cawil oo waqtigii iminka uu joogay nasiib u helay inuu waxa weeye dalkan mashaariic waaweyn keeno ay ka mid tahay maalgashiga dekada berbera oo run ahaantii aan odhan karo wuxuu ahaa shakhsi ku suntan waxqabad firfircooni uu la yimiday intii haddana uu xafiiska joogay waxa uu nasiib u helay in mustawiya xafiiska Somaliland habmaamuuskiisii la dhamaystiro oo dhawaan gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo laga wada qayb galay marka waxaan odhan karaa baasha cawil oo imikana ah wakiilka Somaliland dalka Kenya wuxuu sameeyay run ahaantii waxqabad la taaban karo khayr baan u rajaynaynaa inuu maantana waxqabad ka sii ballaaran ka keeno dalka maanta Somaliland wakiilka uga yahay waxaanu iyadana khayr u rajaynaynaa wakiilka cusub oo nu leenahay dadaalkii baashay halka gaarsiiyay waxa weeye inaad ka sii qaado mashruuca biyo xidheenka xumba weyne ee ay maalgelisay dowladda Imaaraadka Carabtu waxa uu noqday biyo xidheenkii ugu weynaa ee ay Soomaaliland yeelato isagoo awood u leh inuu kaydiyo biyo xadigoodu uu leeyahay 500 oo mitir cubic ujeedada ugu weyn waxa weeye markaan qaranka u shaqeyno inaan wax qabad ka shaqeyno in mashaariicdan bilaabmay ee dalka ka socda mid dalkeedana helo oo imika faalihi hawshiisa fiican bay u socotaay noqdaan kuwa wax ku oola insha Allah sidoo kale waxa jira ceelal badan oo dawladda Imaaraadka Carabtu ay ka samaysay gobolada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland badankooda kaasoo ceelashaasi ay manafacsadaan bulshada Soomaaliland ee nasiibka u yeelatay meelaha laga bineeyay ama laga qoday ceelalkaasi waxaana kamid ahaayeen guulihii uu xafiis u xaqiijiyay intii uu joogay Safiir Baasha Cawil Xaaji Cumar baasha cawil safiirka ahaa ama wakiilka Somaliland u ahaa Imaaraadka Carabta uga ahaa muddadii dheereed uu joogay aad iyo aad waxaan ugu hambalyeeynaa hawlihii uu qabtay ee wax ku oolka ahaa Somaliland uga soo faa'iideeyay halka waxa la yiraahdo ama waa la muuqda ama waa la maqan yahay intuu halka joogay shaqooyin muhiim ah ee wax ku ool ah ayuu ka qabtay Somaliland u ah kayd iyo saldhig u noqon doona hadii alla yari wuxuu isku xiray Imaaraadka iyo Somaliland kalsoonida ka dhaxaysay uu soo celiyay uu isku xiray mashaariic fara badan ee Imaaraadku ka qabtay Somaliland isaga sabab u ahaa xiriirka uu sameeyay sida DB Well hawla ay ka qabatay Somaliland dekada iyo mashaariic kale ee la socota waan uga mahadnaqayaa insha Allahna waxaan u rajaynayaa inuu halka dawladda kale ee hadda loo bedelayna iyo lafteeda xiriirkeeda waa u baahanahay iyo wax qabadkeeda waa dawlad Afrika oo dawladii waaweynaa ah oo dawlad sana oo dana badan in ka dhaxayaan iyadana waxaan ka rajaynayaa inuu sidaas la mid ah Somaliland uga soo faa'iideyn doono oo ixtiraafka ka mid yahay inuu horta Afrikada inuu ixtiraaf ka keeni doono ba insha Allah baan rajo ka qabaaba mar hadduu Imaaraadka Carabtaba mashaariicdan u baahnayn uu ka soo hirgeliyay ee isku soo xiray Somaliland la ictiraafsanayn iyo Imaaraadka Carabta uu kalsoonida ka dhaxaysiiyay waxaan ka rajaynayaa inuu Afrikana ictiraafka ka soo dhameyn doono Safiir Baasha waxa uu xoog saaray sidii dadweynaha loogu soo bandhigi lahaa fursadaha maalgashi ee ka bannaan Somaliland gaar ahaan dhinacyada beeraha warshadaha khayraadka iyo dekadaha waxaa kaloo kaaga mahadnaqayaa dadaalka faraha badan ee xafiiskan ay safaaradani intii ay shaqeynaysay ay dalka kusoo kordhisay waa xaqiiqo qofro Somaliland dariibo uu ogyahay duniduba in kartida muujisay xafiiskaaga iyo adigu inuu keenay xiriirka Imaaraadka ay nimanka la leeyahay oo noqday dawladda ay isugu dhownaayba ay wax wada qabsi wada yeelanayno shaqadii safiir lahaana bilmacna kalima waa qabatay waan u qalma xafiiska waan ku bogaadinayaa maadaama ay tahay inuu safiirku dalkiisa uu sahan tago
usoo xodxodo usoo dhaweeyo dawaa'irka iyo sharaa'inka iyo dadka maalgashiga sameynaya iyo dowladaha ugu markaa agtooda joogo intiiba waa la arkay oo xidhiidhku noqday xidhiidh la taaban karay maanta tan abaaraana aad baad ugu mahadsan tahay innaga oo aan ilowsanayn caqabadaha Soomaaliland haysataa ee ay ka mid tahay inaan la ictiraafsanayn oo ay adag tahay in maalgashi shisheeye lagu aaminay Soomaaliland haddana waxa uu baashacay muddada 3 sano ahayd ee uu xafiiska Imaaraadka joogay uu hirgeliyay in dawladda Soomaaliland ay heshiis maalgelin la gashay shirkadda DP World oo matalaysa dalka Imaaraadka Carabta wuxuuna noqday maalgashigii ugu ballaarnaa abid intii ay Soomaaliland ay jirto ee la geliyo ugana imaada waddan عربيد تاسنا waxay ka mid tahay wax qabadkiisii baasha awil nin horta shaqadiisa ka adag runtii u qalma safiirnimada u qalma meel joogaba oo qofka uu shaqadiisa ka adag yahay aad iyo aad u muhiim ah wadamada carabtana wax xiriir oo badan oo aynu lahayn ma jirin xiriirkeenu adeer wadanka Imaaraadka aad iyo aad u wanaagsanaa iyo carabta kale oo maxay tahay badanba waxaan qabaa ninkaas shaqadiisii inuu si wanaagsan sidee ahayd uga soo gutay uuna ahaa nin xilka u qalmeeyay hawlo badanna ka soo qabtay shaqadaana aad iyo aad ugu habboonaa halka kale ee loo bedelayna waxaan qabaa inuu si lamid uga soo dhalaalayo waayo shaqadu waa qofka weey qofku siduu u chance gareeyo maamulo weeyii baa qabaa waxa xusid mudan in waqtigii heshiiska ay kala sahanayeen Soomaaliland iyo shirkadda DP World oo matalaysa dalka Imaaraadka Carabta uu ahaa mid sifo laba dawladood ah ama waxa afka qalad loogu yeedho government to government kaas oo ka koobnaa laba qaybood qaybta guud oo ahayd waxyaabaha la iska kaashanayo oo ay ka mid tahay in Soomaaliland laga caawiyo dhisida kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka leydhka iyo wixii la mid ah anigu waxaan qabaa ambassador Baashi inuu gaarsiiyay meeshii ugu wanaagsanayd ta koowaad waxa weeyaan qadiyadda Soomaaliland wuxuu aad iyo aad uga dhaadhiciyay Imaaraadka taasoo u sheegay in aanay marnaba Soomaaliland arrimaheeda aan lagu xiriir karin Soomaaliya oo una daba fadhiisan doonin taasi way socotay waanay yeeleen waanay hirgashay taasi talabaad ee kale inagoo ah jamhuuriyad yar oo aan wali cid aqoonsanayn in layna maal gashado qaybta kalena ay ahayd maalgashiga gaarka ee marsada caalamiga ee Berbera shacawil waxaanu u aragnaa inuu run ahaantii dalkan ka sameeyay waxa way wax qabad intuu meeshaasi joogay qofkana waxa lagu xasuustaa marka uu meesha ka tago muxuu kaga tagay in la yiraahdo maalin buu yimiday maalintu ka tagay waxa la isweydiinayaa muxuu qofku kaga tagayaa wuxuu kaga tagay iyadoo xafiiskii maanta waxa way Soomaaliland oo dhan indhaha ku hayso dalka Imaaraadka wuxuu ka tagayaa iyadoo oo Soomaaliland maalgashi caalami uu yimiday wuxuu ka tagayaa iyadoo wax qabad muuqda la keenay wuxuu ka tagayaa iyadoo maanta wax qabadkiisa iyadoo la og yahay sidaan u aragno in la yiraahdo hadana waxaad ku habboon tahay dalka kale inaad isagana ka keento wax qabad iyo muuqdo la keenay ee la taaban karo de markaa waxaanu arki karnaa inay tahay wax qabad muuqda sidoo kalena waxa heshiiska qayb ka ah waxa loo yaqaan suuqa xorta ee Freesonka heshiisyada maalgashi ee Soomaaliland la gashay shirkadda DP World waxa uu ka furfuray dabinkii iyo caqabadihii badnaa ay haystay Soomaaliland sida darteedna ay adag tahay in maalgashi shisheeye foreign investment waxa afka qalad lagu yiraahdo in Soomaaliland si toos loola galo waxaan doonaynaa qayb ka qaadano qaybtayada inaan u shaqeyno caalam anagoo aan ku faa'iido dhinaca kalena waxaan ku haynaa oo noo gudban Afrika oo aan bad lahayn oo haddaad ka soo qaado dalkan China Ethiopia 100 milyan aad dadka soo badanaya waxa ku xigay Uganda oo xiranaya waxa ku xigta South Sudan oo yana aan lahayn bad waxa ku xigta Central Africa habada qaban ilaa badda kale ee laga gaaray xagga kale ee Atlantic Afrika waa inta doon wala wax xirtay dadna waxaan doonayaa kuwana labada qolo u adeego caalamka maraya badda cas iyo Afrikada aan dekada lahayn inaan labada u adeegaan doonay
heshiisyadani waxay gundig u noqdeen inay Soomaaliland la geli karto heshiisyo foolka foola shirkada shisheeye taasina waxay sababtay in shirkado badan oo Imaaraadka Carabta ay xiiseeyaan imaashaha Soomaaliland wada hadalna ay kula jiraan dawladda Soomaaliland sida ay maalgashi ballaaran ugu sameyn lahaayeen Soomaaliland taariikhdu markii ay 9kii bishii Abriil 2018 Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay si rasmi ah uga qayb gashay shir lagaga hadlaya arrimaha maalgashiga oo ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta magaaladiisa Dubai iyadoo ay Jamhuuriyadda Soomaaliland calankeedii iyo codkeedii ku hadlaysana fursad weyn ayay u ahayd inay ka mid noqoto martida sanadka lagu casuumay oo ka badnayd 140 dal xiriirka Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabtu wuxuu aad iyo aad maxaahaday u sii ballaadhay intii aynu ka furanay safaaradda oo aynu wax tar ballaaran u yeelatay bulshada reer Soomaaliland hadday noqoto maxaa la yiraahdaa gude iyo hadday noqoto dibadda taasoo uu wakiil nooga ahaa safiirkeennii hore Baasha Cawil dhinaca kalena waxa uu safiir Baasha Cawil Xaaji Cumar uu suura galiyay in shirkadihii ugu waaweynaa ee duulimaadada sida Fly Dubai iyo Air Arabia ay duulimaado toos ah ay ka bilaabaan Soomaaliland arrinkaasina waxa uu dhiirigeliyay in shirkadihii ajaanibka ay imaadaan dalka maadaama shirkado caalami ay ka howlgaleen Soomaaliland xafiiska Soomaaliland ee Imaaraadku waxa uu shaqo badan galiyay sidii wacyiga siyaasadeed ee Soomaaliland iyo Imaaraadku u noqon lahaa mid isla jaan qaada waxaana xusid mudan in tiraba 5 jeer wufuud kala duwan oo madaxweyne oo ka socota Soomaaliland ay gaadhaan dalka Imaaraadka Carabta sida madaxweynihii hore ee Soomaaliland iyo madaxweynaha haatan xilka haya kuwaasoo kulamo la qaatay madaxdii ugu sarsareysay dalka Imaaraadka Carabta sida wasiirka madaxtooyada Sheekh Mansour bin Said Al ra'iisul wasaaraha dalkaasi Sheekh Maxamed bin Rashid dhaxal sugaha boqortooyada Sheekh Maxamed bin Said iyo madaxweynaha dalkaasi Sheekh Khalifa bin Said Al Nahyan kulamadaasina waxay suura galiyeen in dawladda Imaaraadka Carabtu ay si wacan uga dharagsan tahay geedi socodka dimuqraadiyadda Soomaaliland guulaha kale ee xafiisku xaqiijiyay muddadii 3 sano ahayd ee uu Baasha Cawil hogaaminayay waxa ka mid ahayd in dawladda Imaaraadka Carabtu ay aqbashay in baasaboorka Soomaaliland lagu galo dalkeeda qorshihii farsamo ee lagu xaqiijin lahaa arrintaasina waxa gacanta ku haya xukuumadda Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland taasoo noqotay guul siyaasi ah oo Soomaaliland ay ka soo hoysay dalka Imaaraadka Carabta in xukuumadda Soomaaliland samaysatay shirkad ay leedahay 100% oo laga diiwaangeliyay suuqa ganacsiga xorta ee loo yaqaano Dubai International Financial Center laakiin runtii waxaan qabaa waa fursad aynu wanaagsanayno helay waliba hadaan nagala shaqeyn qolada DB World innaka dalaynama diiwaan galiyeenba shirkadaasi oo mid ay Jamhuuriyadda Soomaaliland leedahay una sahlaysa in Soomaaliland ay la macaamisho caalamka gaar ahaan marka laga hadlayo dhinaca maalgashiga caalamiga in qaabkii ama systemkii Imaaraadka gabi ahaanba lagu wada isbedel si loogu soo daro dalahaan Soomaaliland in Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kaalinta afraad ka gashay dawladda Imaaraadka Carabta wadamada maalgashiga dibadda ay ku sameeyaan adeegyada xafiisku u qabtay jaaliyadda iyo ajnabiga waxaynu ka xusi karnaa in xafiisku bilaabay diiwaangelinta muwaadiniinta degan Imaaraadka oo qorshaheedii socdo si loogu sameeyo Somaliland ID card halka uu dadka shisheeyahana uu qabto bixinta fiisaha dalku galka in xafiisku uu kala shaqeeyo maalgashadayaasha dalka wixii caqabada ee soo wajaha sidii loo xalin lahaa in xafiisku uu dardar galiyo in caalamka la gaarsiiyo Somaliland oo ay ka tahay wafdi suxufiyiin caalami ah oo dalka yimi kuwaasoo ka diyaariyay warbixino iftiiminaya kobaca dhaqan-dhaqaale ee Somaliland ay ku talaabsatay muddadaasi ay jirtay taasoo wax weyn ka tareysay ogaashaha caalamka suxufiyiintaas intii ay joogeen waxa ay booqdeen dekada Berbera booqdeen waxa kale oo ay booqdeen magaalada Boorame iyo Hargeysa laakiin waxa ay sawir guud ka muujiyeen Jamhuuriyadda Somaliland inay tahay dal nabad ah inay tahay dal horumarsan
inay tahay dal isagu waxqabadkiisii iyo wixii uu samaystay ay yihiin wax shacab ka shaqaystay oo hoosta ka bilaabmay. waxqabadka safiir baasha oo mid muuqda waxaa shahaadooyin abaalmarin lagu guddoonsiiyey magaalo madaxda waddanka Sweden ee Stockholm iyo magaalo madaxda gobolka Awdal ee Boorama waxaana abaalmarinahaasi ay caddeyn u ahaayeen waxqabadkaasi aynu ka soo warnay ee safiir baasha Cawil Xaaji Cumar. وحلا خبو قبيني حق لا هلي أدوسين